su'aalo aad u fudud baa inuu ku weydiiyo diyaar ma tahay si fiican su'aasha ugu horeysa waxay ku leedahay waxa sheegtaa salaad aad ka tagta aad soo qalin karin hada soo qalaysidna adiga dambi kugu ah waa salaada casr su'aasha labaad waxay ku leedahay su'aasha labaad waxay ku leedahay waxa isdagaal adiga abtiga hooyada walaalkeed iyo aabaas iyo digiska oo heelin lahayd abtigii oo heelina labada kale waa ku adkeen lahayd labada kale umaad heelin lahayn labada kale waa ku adkeen lahayd aad baa sita walaalkeed السلام عليكم دمان أصحابك حرين يوتيوب كنا ولكن كزام وإذا لما أنتم حرب أنا دو another video public questions وحنا ويدين دونا سؤال أدوه اللي دونتان وركم بدينا وحبدين دونا سؤالها وسؤال ويدينته إيو برنامجك وحيدين لا يا داكو عشب يوتيوب كان سبسكرايب صار سيدو كلا دا هوري يوحرنا دوحان كله فضلا شغل فيديو كان سيو جاردات بدن sida u gaar dad kale oo fara badan waxaan in leeyahay warkan badin doono ugu horan ku soo dhaw walaalka Zama official waa dhaw walaal waa dhaw adigoo ku bilaaba magacaaga magacaygu waa Maxamed Cabdi Axmed oo ku magac dheer Maxamed Surdiin laba su'aalo aad u fudud baa inuu ku weydiiyo diyaar ma tahay si fiican su'aasha ugu horeysa waxay ku leedahay waxa sheegtaa salaad aad ka tagta aad soo qalin karin hada soo qalaysidna adiga dambi kugu ah waa salaada casr su'aasha labaad waxay ku leedahay su'aasha labaad waxay ku leedahay waxa isdagaal adiga abtiga hooyada walaalkeed iyo aabaas iyo digiska oo heelin lahayd abtigii oo heelina labada kale waa ku adkeen lahayd labada kale umaad heelin lahayn labada kale waa ku adkeen lahayd aad baa sita walaalkeed horeen ku soo dhaw walaalka Zama official aad ugu dhaw walaal adigoo ku bilaabay magacaaga magacaygu waa Siyaad Aadan Cabdi laba su'aalo aad u fudud baa inuu ku weydiiyo diyaar ma tahay insha Allah su'aasha ugu horeysa waxay u dhacaysaa sidatan waxa sheegtaa salaad waajib ah haday ka tagto aadan soo qalin karin hada soo qalaysidna ee dambi adiga kugu tahay niyo su'aashaas jawaabteeda isku day waa salaatu jumca okay su'aasha labaad waxay ku dhacaysaa waxa isdagaalay adiga abtigaaga iyo hooyada walaalkeed iyo aabaha sidiis yaa u helin lahayd waxa dhan waa hal shakhsi oo naftigay bas okay aad ma satay ugu horeen ku soo dhaw walaalka Zama official waa ku dhawahay saaxib adigoo ku bilaabay magacaaga Farxaan Ilyas baa yiraahdaa laba su'aalo aad u fudud baa inuu ku weydiiyo diyaar ma tahay ha su'aasha ugu horeysa waxay u dhacaysaa sidatan waxaad sheegtaa salaad aadan soo qalin karin haday ka tagto hada soo qalaysidna ay dambi kugu tahay salaad hadii ay ka tagto aadan soo qalin karin hada soo qalaysidna ay dambi kugu tahay hadii aad soo qalaysidna ay dambi kugu tahay niyahow hadii su'aashaas ku degdego horta waa xamayna dambi iga soo gaarayo laakiin hadii maskaxda aan ka shaqeysiiyo no jimca farad ba kugu wajibo jimca waa sunna muakkad waa muqt salaad irabumsi ma sunna mise waajib salaad adi waajib kugu ah hada soo qalaysid haday ka tagto aad soo qalaysidna dambi adi ay kugu tahay irabumsi ni humay okay su'aasha labaad ayaa ku weydiinaya waxay tahay waxa isdagaalay adi abtiga aabaha sidigiisii hooyada walaalkeed yaa u helin lahayd hal qof leeyahay wax dhan ay sheegteen okay aad ugu maasantahay ugu horeen ku soo dhaw walaalka Zama official oo dhawaay walaal adigoo ku bilaabay magacaaga magacaygu waa Jacfar Abu Nuuraan Xaaji Bakar ina Xaaji Bakar laba su'aalo aad u fudud baa inuu ku weydiiyo diyaar ma tahay kaamiradan u jeeso diyaar walaal su'aasha ugu horeysa waxay ku leedahay waxa isdagaalay su'aasha ugu horeysa waxay ku leedahay waxa sheegtaa salaad haday adiga ka tagta aad soo qalin karin hada soo qalaysidna dambi ay kugu tahay waa salaad oo duhur waa casr salaad casr aad ugu maasantahay su'aasha labaad waxay ku leedahay waxa sheegtaa waxa isdagaalay adiga abtiga hooyada walaalkeed iyo aabaha sidiis ka u helin lahayd aabaha waxa isdagaalay adiga abtiga hooyada walaalkeed iyo aabaha sidiis ka u helin lahayd kii hooyada u helin lahayd abtiga u helin lahayd aad u maasantahay horeen ku soo dhaw walaalka Zama official waa ku dhaw saaxiib si wanaagsan adigoo ku bilaabay magacaaga kaamirada yar fiiri waa sheekay Maxamed Cabdi Xaashi laba su'aalo aad u fudud baa inuu ku weydiiyo diyaar ma tahay waa diyaar saaxiib su'aasha ugu horeysa waxay ku leedahay waxa sheegtaa salaad hadii ka tagto aad soo qalin karin hada soo qalaysidna adiga dambi kugu tahay waa salaada jimcaha saaqaysa
okay su'aasha labaad waxay ku leedahay midda waa saxday su'aasha labaad waxay ku leedahay waxa isdagaalay adiga abtiga hooyada walaalkeed iyo aabaha sidigiska u helin leed saddexdooda kule saameyn hal abtigii le waayo okay aad u maasantahay ugu horeen ku soo dhaw walaalka Saama official waan ku dhowahay adigoo ku bilaabay magacaaga magacaygu waa Saadiq Ilyas Maxamed laba su'aal oo aad u fudaaraba inaan ku weydiiyo diyaar ma tahay waa kaga jawaabayaa su'aasha ugu horeysa waxay ku leedahay waxa sheegtaa salaad waajib kugu ah haddii ka tagta aad soo qaleen karin hadaa soo qaleysidna adiga dambi kugu tahay igu celi su'aasha salaad haddii ka tagta aad soo qaleen karin hadaa soo qaleysidna dambi adiga kugu tahay waa salaatul jumca aad ugu maasantahay midaas waa saxday midda labaad aan ku weydiinayo waxay tahay waxa isdagaalay adiga abtiga hooyada walaalkeed iyo aabaha sidigiska u helin lahayd su'aasha igu soo celi waxa isdagaalay adiga abtiga hooyada walaalkeed iyo aabaha sidigiska u helin lahayd aabay hooyadii marka ka u helin lahayd adii intaas midkood ka u helin lahayd kolba hooyadeen u heli lahaan ugu horeen walaal ku soo dhaw Kazama official soo maasantii saaxiib aad baan ugu soo dhawahay waan ku soo dhaweynayaa meeshan adigoo ku bilaabay magacaaga waxa la dhahaa Cabdullaahi Maxamed baan dhahaanayo aan ka mid dhalinyarada Kismaayo ku joogto okay laba su'aal oo aad fudaarba inaan ku weydiiyo diyaar ma tahay والله سؤالها إنك استوى إسكبدينهين لكن إسكودي أنت تورتيدا. أوكي سؤال شو قرر شو حكوا هذا واحد شيكتا صلاة هذه كاتك هذا السوق اللي ينكرن هذا السوق اللي يسيدنا هذه قدام بيكو نقناش. سؤال ديني حاطر الصلاة هذه كاتك هذا السوق اللي ينكرن هذا السوق اللي يسيدنا هذه قدام بيكو نقناش. والله سؤال شاسني صلاة ظهرت بدينهين إنك هذا كاتك السوق اللي ينكرن. مالنا صلاة عيدين كنا كتير مالنا عيد عيدها maxay yahay hadii ay ka tagto lagu malahan waa yaani waa salaad waa ku dhaaf xilligeedii baa baxay xilligeedii waa tagay ciida tiri ciidankan ku jira salaad ciid okay su'aasha labaad waxay ku leedahay waxa isdagaal adiga abtiga hooyada walaalkeed iyo aabaha sidiiska u helin lahayd aniga waxa isdagaalay may waxa adiga ismeeda dagaalinba waxa isdagaal adiga abtiga hooyada walaalkeed iyo aabaha sidiiska u helin lahayd aabaha sidiiska ma wallahi hadaan waxaan u helin lahaa aabaha sidiiska u helin lahaa maxaa yeelay waa aniga meesha arkay maado hooyada dhawe hada wasata ugu horeen ku soo dhaw walaalka Zama official waa mahadsantahay adoo ku bilaabay magacaaga Nuur Maxamuud Cabdi laba su'aal aad u fudaar baa inaan ku weydiiyo diyaar ma tahay diyaar ah su'aasha ugu horeysa waxay ku leedahay waxa sheegtaa salaad hadii ka tagto aad soo qalin karin hadaa soo qaleysidna dambi adiga ay kugu tahay salaad jumca midaas waa saxday su'aasha labaad waxay ku leedahay waxa isdagaal adiga abtiga hooyada walaalkeed iyo aabaha sidiiska ka u helin leed abtiga hooyo abtigaaga u helin leed aabaha sidiiska hooyada adiga abtigaaga aabaha sidiiska hooyada walaalkeed labadaba ma u helin leed abtigaaga u helin leed waa mahadsantahay ugu horeen ku soo dhaw walaalka Zama official walaal macaan waa dhawaay adigoo ku bilaabay magacaaga magacaygu waa Cabdiraxmaan Ibraahim aadan oo ku magdheer Timjilaac Timjilaac laba su'aal oo aad fudaar baa inaan ku weydiiyo diyaar ma tahay diyaar waa labada su'aal waxay ku leedahay waxa sheegtaa salaad hadii ka tagta aad soo qaleen karin hadaa soo qaleysidna adiga lagu xisaabtamo aakhiro oo dambi ay kugu tahay saaxiib haddaan isku dayo waxaan dhihi lahaa duurka iyo casirka okay su'aashaas maada haleelin waxa rabaa su'aal labaad inaan ku weydiiyo su'aasha labaadna waxay ku leedahay waxa isdagaalay adiga abtiga hooyada walaalkeed iyo aabaha sidigiisa yaa u helin lahayd midna uma helin lahayn oo waxaan ka ahaan lahaa dhexaad faraha ka qaadi lahayd okay aad u maasantahay dhammaan asxaabta ku xiran YouTube-keena waa walaalkiin Kazama waxaan idin leeyahay waxaan u maleynayaa inaad ku wada qususheen videogan hadaa ku qususheen ama xitaa aad ku dhool cadeysay waxaan ka codsanayaa inaad subscribe iyo share aad ku qabatid wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh